marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waa salaamayaa. Salaan kadib ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu nabad qabaa asmaha habka beeleed u abaabulan ee Jubbaland sheeganaya ay warbaahinada ay sheegayaan waxba kama jiro. Runtii waxa weeyaan ciidamada Soomaaliyeed oo Soomaaliya leedahay inay magaraysa isku dhintaan oo wiilal Soomaaliyeed ay isku dhintaan inta kaliya maana waxay irinay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu nabad qabaa. أنا وحوي عن عيدا كيان كوب احتراء ميلان محادين أيرادو محا عيدا كي قوة دح بحيانا متشرو لمن كان حبك قبيل وهذا بلن تشبلان شيئانا يانا كنت وحوي وحياما أي طربيانا ذي الشيء يعني وحبك متشرو عيدا كحوق دل الصوماليين وناكسي هاي عيدا كديغان كشرفت برنا كنت وحوي يعني كسياشة أحمد مدوبي لمن كان محا حبك قبيل وهذا بلن أي محاولين ديدينا أيون الصيف في عمل حوق دلك الصوماليات وراهو القلين يون حوق دلك الصوماليات بين حاسة عدن كمديين كنت وحوي عيدا مرة قالك كسي حوق دلك الصوماليات وين نبات قبان وحوي قفكم محا بين عليها مقرأي سعدية إلى بقى وحوه سرين أما وحوغين وحدو وحدون وقوري كريا وحوي محوها ماركتين عيدا كا وحوي حوق دلك الصوماليات بقى جوجا ciidanka xoogga dalka Soomaaliya magaraysaa arintan u ilaalinaya qarannimada Soomaaliya iyo inay wiilal Soomaaliyeed isku dhintaan marka waxaas waxba kama jiraan weey anigu ciidankayga dhex jooga ciidankaygu waa nabad ciidanka deegaanka diiday muxuu ahaay habka qabiileed ee uu waxa uu abaabulaya Axmed Madoobe ee geesiyaashaana way nala joogaan ayagoo oo ku beeray muxuu xoogga dalka Soomaaliyeed waana nabad qabaan guud ahaan ciidamadu way nabad qabaan runtii waxa weey ciidanka qaranka Soomaaliyeed meeshaas waxa uga baxay waxa weeye in dhiig ummad Soomaaliyeed ay isku daalato Soomaaliyeed ay islayso asagoo taa maxaa ilaalinayo ciidanku waxa weeyaan wax kale oo meesha uga baxay ma jiro